badbaadada carruurta bay ahayd haddana waa dhalinyaradii baa meesha fadhida marka aynu ka wada faa'iideysano ilaahay subxaanahu wa tacaala allah idin barakeeyo isaga iyo sheekh cabdullaahiba falyatafadal mashkuura عليكم السلام. دي اللي يقدر يقدر وشك كاميرات مدرس عمس. ولا فايدة سنة. إلا هي عالم كان لقاها فايدة سنة. أنت أن لم يضمن أيضا. حقك الله سبحانه إن شاء الله. هذا إن شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يعني محاضركم بس تلقى لنا الكيران ومر يا ليدي دلني يردي بقرصة ويدي قرصة دخوله. ميدا قرصة لين مركا هذي ليدي لا قرصة. runtii dhallinyaranimadu waa wakhtiga ugu fiican ee nolosha ka mid ah waa wakhtiga uu qofka bini aadamkii dhiso adduunkiisa iyo aakhiradiisaba waa wakhtiga keliya aan cidilo lahayn qofku markuu weynaado xidhiidhkiisa tiro bata mujtamaca xidhiidhku la leeyaha ku tiro bata marka waqtigiisa inta badan isagu ma laha dad kala leh laakiin qofka dhalinyarada ah waa qof isagu hanta waqtigiisa dhamaanteed waana waqtiga ugu fiican ee uu qofka bini'aadamkiisa dhisi kara adduunyo aakhiradiisaba ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال آخرة أنك dhalinyarada ka waramayay wuxuu ku tilmaamay dadkii عرش الرحمن كهرسنا يا مالنتا قيامة إدتك كديدن يهي أو كنتم كونوا السندود لتاجين يهي أو خلقك الله حسابنا يو وقف ولبا وحو جيستي مالنتو قان قاري إلا يا مالنتو كردمنا يو وحو سميي وحو دجيستي يدك يا قلبي يا مال ولبا وحي سميسي الله حسابنا يو وحساب آدو أدق وقفك بنادم كاهيسنا maalinta kadeedkaasi jiro nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay 7 qof oo kadeedka iyagu aan ku jirin ilaahay carshigiisa harsanaya oo xagga alle subxaanahu wa tacaala laga maamusay 7da waxaa ka mid ah shaabun nasha'a fii cibaadati illaah nin dhalinyaro ah oo ku barbaaro ku kobcay ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa da'daasi waxay tahay da'da mabaadi'da la xambaaro haddaad aragto dunida isbedelada ka dhacee taariikheed haddaad baadho dhammaantood da'daasaa samaysay xataa kuwan galbeedka thawraadkii ka dhacay thawraddii faransiiska tii ka dambeysay tii shuuciyadda ardada jaamacaadkay ahaayeen dadka ugu badan ee isbedelada dunida sameeya waayo waa dadka ugu badan ee bay yidhaahdaan riskiga waajihi kara qofku markuu yara gaboobo uu xisaabtamaa uno talow carruurtii iyo reerkii iyo kaariyeerkii waxbuu ilaaliyaa kaloo masaalix kaluu daydayaa laakiin waxay dhahdaan qofka markuu dhalinyarada yahay waa riski taker walidaalika waa da'da mabaadi'da qaada markaynu leenahay waa da'dii nebi maxamed u hihilisay calayhi salaatu wasalaam saxaabadii koowaad 10 المبشرين intaba nebiga ka weynaa nebi maxamedna 40 jir baa lagu soo diray 10 المبشرين wax 40 gaari kuma jirin Abu Bakar baa ugu weynaa 37 jir buu ahaa Mala Uthman baa ku xiga 34 buu ahaa Umar 37 jir buu ahaa Sa'd ibn Abi Waqqas 17 jir buu ahaa Zubair ibn Awaan 12 jirkaas uu ahaa Ali isagu 10 ka buu ka yaraa baa la yiraahdaa Talha ibn Ubaydillah sidoo kale uu ahaa Abu Ubayda ibn al-Jarrah 24 jir buu marka la isku soo wada duuduubo ragii diinta tan u halgamay ee xambaaray siday shabaab bay ahaayeen dhalinyar bay ahaayeen
odayadii quraysheed waxay ahayd kuwii diinta ka hor yimid sanaadiidu quraysh wixii marka dambe ka islaamay mooyaane abu sufyaan iyo baa ka islaamo markuu 21 sanadood nabi maxamed la diriirayay buu islaamay abu jahal iyo dee mughira ibn shu'ba kuwaasina waa ku dhinteenba mughira ibn shu'ba ma aha saxaabiga alwalid ibn mughira waa ku dhinteen sanaadiidu quraysh ubay ibn al-khalf waxay ku dhinteen gaalnimadii iyagoo diinta hortaagan waxaan markaa uga dan leeyahay kow dhalinyaradu horta waa inay diintooda u fakaraan waa shayga koowaad aakhiradooda inay ka fakaraan iyo waxay la kulmi doonaan nolosha adduun markay tahay iyo nolosha aakhiraba waxyaabaha ka mid ah guurkaa ka mid ah waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay qofku hadduu guursado nisfu diinihii inuu u dhammaystirantay falyattaqi illaaha fi nisfi alaakhar buu nabigu ilaahay uga cabso nuska soo hadhay dadku inta badan dee afka iyo farjiga waxaa inta badan rabshadu ka raacda wax la cuno iyo galmo haddii uu qofku guursado nabigu wuxuu ku tilmaamay nisfu diinihi inuu kamishay diintiisa nuskeeda inuu ilaashaday waladiina hum lifuruujihim xaafiduun qur-aanka in badan baa ku aragteen marka laga warramayo jannada ulaa'ika fi jannaatin mukramuun kuwa lagu tilmaamayo ama alwaarisuun jannatulfirdowsa kuwa dhaxlaya sifaadkooda waxaa ka mida maxay kuwa farjigooda xifdiyey baa layidhi farjiga sida ugu fiican ee loo xifdiyaana waa kuu nabigu laha calayhi salaatu wasalaam yaa macshara ashabaab man istataaca minkum an yatasawaj falyatazawajuu nabi war dhalinyaro oy buu nabigu yidhi guurka dadkao dhan baa u baahan laakiin iyaga si gaaraa loo tilmaamay odayadaa u baahan da-da dhaxa u baahan guur waa loo wada baahan yahay iyadoo loo wada baahan yahay dadka uu nabigu dhiiri geliyey waa dad gaar ah lama odhanin yaa ayuha shuyuukh man istataaca minkum aziwaaj falyatazawaj lama odhan laakiin waxaa la yidhi iyadoo lala hadlayo macaashira shabaab dhalinyaroy man istataaca minkum ulbaa'a ciddii awooda inay guursato baa-adu waa waxyaabihii yareeraay ku baxayay guurka cidda awooda falyatazawaj buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha guursado waayo fa innahu axsanu lilfarj waqadu lilbasar nabigu wuxuu ku sheegay ishaaduna inay dhowrsoomayso farjigaaguna inuu dhowrsoomayo waxaa la yidhahdaa qofku guurka wuxuu ka helaa sakan deganaanshiiyo saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay wamin aayaatihi inta ilaahay aayaad suuraddaasi wamin aayaatihi baa ku badan ilaahay wuxuu ka warramayaa aayaadka waaweyn ee ilaahay ku tusinaya subxaanahu wa tacaala aayaadkaa waaweyn waxaa ka mida baa ilaahay yidhi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha in ilaahay subxaanahu wa tacaala idiin abuuray lamaane idinka dhigay maxaa la idinka dhigay litaskunuu ilayha baa ilahay yidhi sakanka markaasuu qofku dareemaa waa markuu xasilo sakanku waa min asukuun buu ka yimi waa ina xasishaan daraaddeed buu nebigu ayuu qur-aanku tilmaamaya idan guurku wuxuu u baahan yahay in la dhiirigeliyo oo qofka muslimka ahi maadaama la yidhi diintiisa ku dhammaystirmaysa oo farjigiisa ku xifdimaya oo naftiisa sukuun iyo xasilooni dareemaysa wax uu qaalisana qof bini aadamay uu helaana waa ubad adduunka marka la joogo waxa dhex yaalla almaalu walbanuuna ziinatu lxayaati addunya zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisaai walbaniin waxa ziinada adduunka taalana waxa u qiimo badan waa qofka bini aadamka ah dee meesha qof bini aadama ilaahay uu kaa siiyaana waa inaad guursato maxaa guurka hortaagan malaa taasaa ka macaan inaynu wax ka tilmaamno maxaa dhalinyaradu u guursan weyday wadanadan aynu joogno cultureka ka jira dhibaatooyinka uu dhalay oo ah dhibaatooyinka xadaaradu ay samaysay ayaa ka mid ah inuu guurku yaraado sababo badan daraaddood kow sabab dhaqaale waxbaa ka jira oo waxay yidhaahdaan markay taariikhda yurub ka warramayaan waqtigii wax la dhali jiray yurub ay badan jirtay
ragga waxa la siin jiray bay dhahaan family wage salary reer ku filaado ninku qaadan jiray marka dee waxay noqonaysay qofka dumari inay maxay ilma koriso guri hayso caykanayso waayo shaqada ninkaa ku filan hadda noloshii oo dhan inta baahi laga dhigay ayaa waxaa dhalinyaradu leedahay dee shaqadaydu kuma filla reer iyo wax la masruufo laakiin marka horaa masruufka waxaa laga dhigay meel hayru caadiya iminkadan waxa qaadataa waa ku filantay laakiin waxa la inaga dhaadhiciyay noloshu haddaanay standardkaa yeelano sidaa noqonin inaanu ahayn guri saxa inaanu noqonaynin kow mushkilad dhaqaalaa la sheegaa laba waxaa la sheegaa mushkilad daraasa weli jaamacaddii baana ka bixin siiba westranka dhibtaas ugu badan ee hablahay haysataa waayo nolosha westranka taalla waa loolan gabadhu inay loolanto mushahar fiican qaato shaqaysato dee waa inay maxay iskuul soo dhammaysaa jaamacad ka baxdaa dabeetana shaqo bilowda kadibna kaariyeerkeeda dhistaa intaasi dee 30 bay qaadataa hadday rabto inay shaqada boos fiican ka gaadhana dee 40 waa gaadhaysa ama raycaanatu shabaabiha wuxuu ku lumayaa nin iska celinta ilan galbeedka waxaa fikirkii yaalla caynka u yaalla idan inantu odayada ama islaamaha ama waxay leeyihin inantu weli jaamacaddii bay dhigataa marka xataa haddii la weydiisto waxay leeyihin maya adeer bar horta u kaadeen jaamacadda ha dhigato ha dhammaysatee taasina waa qodob labaad qodob saddexaad oo jira oo aynu odhan karno dadku way ku marmarsoodaan waa isfaham la-aan waa waxay yidhaahdaan expectationska inanku muxuu raadinayaa qof aan dunida ku noolayn yani marka dhalinyarada la yahay inta badan suura khayaaliya baa la sawirtaa inan dheer oo intaasoo mitira oo caynkaa u eeg oo caas oo caynkana oo reer ka dhalatay oo inantuna sidaasi leeg ba iyana suura khayaaliya u haysataa laakiin nolosha waxaasi kama jiraan su-aal qur-aanku weydiinaya adigu intaa ma tahay mid dheer oo cas oo qurux badan oo lacag qaato oo halka adigu intaa ma tahay waa maya waa midda kale waxaan kuu sheegayaa bini aadamku haddii breeding loo samayn lahaa sida xoolaha matalan neef caana labaa la qaataa dabeetana kaasaa la breed gareeyaa inta caanaha le unbaa markaa la badiyaa kuwa kalena waa la laayaa kuwa loogu talagalay hilibkana neefaf xoog weyn baa la qaataa kuwaasaa la koriyaa la badiyaa waxa kalena waa la laayaa dabeetana laba nooc buu noqdaa lo-du mid wada dibi xoog waaweyn dhasha oo hilib loogu talagalay iyo lo feedha xunxun wada leh oo candho weyn leh oo sida mishiinka waxaa la xisaabiyaa imise brotiin uu cunay imise brotiin uu dhiiqay bay ku xisaabtamaa mishiinka soo efficiency-giisa lama eego waxaa la geliyay waxaa ka soo baxa lo-danna waxaa la eegaa brotiinkii maanta la siiyey intuu ahaa intaasoo brotiin intaa leeg baa ku jiray maxay dhiiqdo intaasoo caanaa bay dhaqdeen intaasoo markaa tani waa khasaare brotiinkii may soo wada daynin la siiyey ma rabaan inay muruq yeelatay waxba toona waa inay noqotaa neefkaa feedhaha engegan leh ee caanaha badan dhiiqaya bini aadamka haddii sidaa loo geli lahaa badhna bahaluu noqon lahaa badhna nooc gaaru noqon lahaa yani haddii inta quruxda badan leh caqliga badan leh caynkan le un laysu guuriyo miyaa loo kala tegay markaa inta foosha xun le dabeecadda adag le qalafsanna dhan laysugu guuriyo badhna way bahaloobi lahaayeen badhna way dee nooc kale soo bixi lahayen laakiin nolosha ilaahay saa uguma talagelin noloshu waa nasiibkaasi mid qurux badan baa gabadh aan qurux badnayn guursanaya gabadh qurux badan baa nimaan qurux badanay guursanaysa mid caqli badan baa gabadh aan caqli badan noloshu waa isku darkaa walidalik waxyaabaha ay dhalinyaradu ka fakarto inta badan wax badani kama jiro mashaakilka kale dhalinyartu sheegta waxaa ka mid ah
baqa'i ka baqayaan inuu burburo guurku. sheekh hebel baa guursaday oo markiiba wuu ka burburay. markaa isna wuxuu cabsanaya waa haddaad guursato haddana berritaad furto waa iska balaaye barorta yarasu inantiina sidii oo kale leedahay yarasu muxuu u burburaa waxay yidhaahdaan dhowr sababoodba wuu u burburaa tawaqucaadkaasi oo yana qaldan wuxuu rajaynayaa malaa'ig inuu helo aan dembi ka dhacaynin iyana waxay rajaynaysaa inaan malaa'ig oo kale inay hesho waayo dadku markay haasaawayaan maxay sameeyaan intaada miyaad sheegtaa markaad gabadh la hadlayso mise labeentaadaad akhridaa qof waliba labeentiisu sheegaa inanta hadday tahayna inteeda fiican bay u sheegaysaa inanka hadduu yahayna intiisa fiican buu u sheegayaa qof walba markaa in aanu sheegin baa jirta laakiin marka guriga la isugu yimaado maxaa dhacaya qof waliba qofku ahaabuu noqonaya xaqiiqadaa loo tegayaa haddii markaa expectationkaagu sarreeyo aad moodayso dadku markay isguursadaan inaysaa malaa'igtoo kale u dhaqmayaan oo aan dembi ka dhaqaynin wax kasta oo dhaca markaa wuxuu noqonaya waxaad dib uga soo boodo laakiin haddaad og tahay qofkaad guursanaysaa inuu qof bini aadama yahay bini aadamkuna gaf iyo sawaabo inuu leeyahay adna inaad qof bini aadama tahay oo gaf iyo sawaabo aad leedahay waxay noqon lahayd markaad nolosha dhabta a tagto intaa isbarataan inaad manage garaysaan markaa waxa la maamuli karaa qof aad garanayso dad barato haweentaad qabtaa waxay ka xanaaqdo waxa dhiba waxay ku faraxdo waxay jeceshahay say rabto inay u noolato iyana ay barato ninkeedu wuxuu fiican yahay wuxuu ku xun yahay hadday rabaan labadaa qof inay isfahmaan nolosha way maamuli karaan markaa waayo saaxiibkaa intiisana waa taqaanaa wuxuu ku fiican yahayna waa taqaanaa qof kastoo bini aadamana inta badan waxa badan wuxuu ku fiican yahay laakiin waxay u baahan tahay meelaha godoloolada ka leeyahay de in la manage gareeyo la maamulo sidii loola dhaqmi lahaa sidii loola noolaan lahaa saad caqabadaha yaryar uga ilaa marnaba ma soo helaysid qof 100% aan waxba ka dhacaynin ma soo helaysid marka waa inaad ku tala gashaa walidaalika waxay yidhaahdaan mararka qaarkood cultural difference ay ka yimaadaan xataa waxaa suurtagal bay yidhahdaan inay hurdada ku heshiin kari waayaan waxa dhici karta nin khuuro badan inaad ahayd iyana guri aan laga khuurin ay ka timi haddaad qarracdo guriga ka dhex tiraahdo oo ay 4-5 habeen seexan weydo inay neefastaaba dhici karta wax dhici kara yani waxay yidhaahdaan guurarka ugu badani kuwan xisaayaadka sameeya waxay burburaan bay yidhaahdaan 6 bilood ilaa sanadka ugu horeeya hadday waqtigaa dhaafaan waxay u badan tahay bay yidhaahdaan inuu guurkaasi noqdo guur naajaxay inuu noqdo bay u badan tahay muxuu intan u lumaa waxay leeyihiin wuxuu u lumaa cultural difference-ka meesha ka jira baa isqaban la marka hore o dhan wadannada qaarkood maalan muslimiinta ka mid ah ayaa waxay tijaabiyeen talaaqiiba ku batay furitaankiiba tiro batay deetana dowladda waxay soo rogtay aragti odhanaysa dhalinyaradu intaanay guursanin koros ha la siiyo guri sida loo maamulo hadduu dhaqaalihiisa yahay hadduu maamulkiisa yahay hadduu wada noolaashihiisa yahay in la baro duruus ay qaataan seminaar waa inuu qofku qaataa guriga sida loo dhaqo hadduu nin yahay iyo hadduu gabadh yahay seminaarka markuu qaato qofku shahaaday siiyaa marka dowladdu waxay soo rogtay maalan guriga waxa la dhiganayo oo dhan dowladdaa bixinaysa nin kastoo dhalinyaradood ka mid oo guursanaya wixii guriga la dhigay iyo kharash ku baxay oo dhan dowladda kaa bixinaysaa shardigu ku xidhaya waa inaad shahaadadaa keentaa inaad koorskaa qaadatay waa inaad soo caddaysaa haddaad soo caddayso koorskaa inaad qaadatay guurkiina markaa dowladda idinka bixinaysaa farsamadaa markay sameeyeen waxaa soo baxday in furitaankii uu aada hoos ugu dhaco waayo waxay leeyihiin dhalinyaradu intaanay guriga tegin bay waxay barteen si guri loo maamulo dhalinyarta dabadda joogta dhibta haysata waxaa ka mid ah Soomaaliya lama soo koorskaasi ma jirin oo lama qaadan jirin guryuhuna ma burburi jirin waayo waxaa jiray dad khubaro ah oo qofkan ku xeeran inanta habaryaraheed iyo eedooyinkeed iyo hooyadeed iyo walaalaheed iyo waxbaa jooga
ninka adeeradii iyo eedooyinkii waxbaa jooga. idan cid kale oo guriga maamulkiisa wax kula wax toosinayso tiro badan baa joogtay. marka waxa weeyaan waa cid tacliin tajriba soo qaadatay, experience dad waaya araga baa joogay oo mashaakilkaas sida loo xalilo ama sida aan u dhaceen looga hortago. inanta habaryaraheedii eedooyinkeedii dadkan baa intaa la hadlayo leena waxaa samaynayna saa lama yeelo na sidan waxbaa loo tilmaamaya, waa la saxaya. inanka laftiisa cid baa saxaysa oo ka dambaysa. marka waxay helayeen aqoon ku salaysan tajaaribtii faamligooda dhex taallay. ama guurka halkan wiilka iyo gabadha marka la isku daro ay guri gaara degaan, cid dambo ka daba tagtaa ma jirto. dee idinkaaba odhanaya private lifekayga iyo cidi soo dhexgelin, saxiixa maaha. afkaartaynu wadanadan ugu nimi bay ka mid tahay waa my private, ma rabo in cidina soo gasho. haddii aadna aqoon darra ku hayso oo aanad wax ku saabsiisanba baabkan oo daraase cilmiya oo waa cilmi la bartay aanad qaadanin, kuwii tajribadana aad ka durugto, sidee buu markaa u hagaagayaa gurigii? adigu tajribo ma lihid, gabadhuna ma leh, waanad ka soo durugteen ciddii waayo aragnimada ka heli kari lahaydeen haddiiba ay idinla joogaan. mana jirto wax koorsiso aad qaadatay. marka waxaan ku talinayaa dhalinyaro intaanad guursan guurka baro, hadday gabadh tahay iyo hadday wiil tahayba. waxaan odhan lahaa masaajidku ha qabto koorsooyin lagu barayo xuquuqda iyo guri sida loo dhaqo. waa idinku jiraan rag sociology bartay soo maha, sociology dad bartay waa idinka buuxaan, dad leadership bartay waa idinka buuxaan, dad education bartay waa idinku jiraan, culamo waa idinla joogtaa. dadkaasoo dhamme hadday iscaawiyaan way idiin samayn karaan koors ah guri sidee loo dhisaa ama loo maamulaa ama loo wadaa. waa cilmi. cilmiga badhna can ariiqi tajriba lagu helaa. maalan libaaxa yar cidi uma dhigto sida loo ugaadhsado, laakiin wuxuu dabagalaa hooyadii oo ugaadhsanaysuu sanad laba la socda, kadib tajaaribtaa barta. midna waa kan dee buug iyo qalinka lagu bartay class inta la galo wax la dhigto. labadaba waa laba cilmi. ariiqada usulubka loo qaatay unbaa kala gedisan. soomaaliya maalan markii la joogay makaaniga ayaa wax inoo bari jiray, nimanba gabadhida inoo samayn jiray soo maha. makaaniyiinteenna inta ugu badani inaanay waxna qorin waxna akhriyin baa laga yaabaa. xagee wax ka barteen? gerish baa la geeyey, maalmaha hore baanaduhu kala bartaa, number 10 idhib buu kani ku yidhaahdayo keebaa tan kuwa keeyo uu soo helaa. maalmaha ku xiga waxaa la baraa boolasha saa loo furo, halkaa fur, kaa ii fur buu yidhaha, kaa ii furo, saa wax loo furfuru bartaa. muddo markuu joogo xidhxidh kaa wax laga baraa, kaa ku xidho horta kaa geliyo, kaa akhiiran siduu ishaa uga daawanayo marna baanad ugu furayo marna ayuu isna bartaa. waxaa ka jira waxaa lagu baray can ariiqi tajriba. kalaas lama geynin, laakiin can ariiqi tajriba lagu baray. waxaan uga dan lahay inaan idhaahdo cilmigu ka kalaaska lagu dhigto qura maaha, mid tajribo lagu helaana waa jira. usluubka wax loo dhigay unbaa kala gedisan iyo waktiga uu qaadanayo. mid iskuol loo tagiyo classna uu jira. idinku kii tajribada waa yarta inaa heshaan. waxa quree soo hadhay markaa muxuu yihi inaad dee kan tacliimiga ah la baranayo inaan laga xishoonay in la barto. kaasina waxaan isleeyahay waxay fudaydinaysaa guurku hadduu yimaadaba inuu burburaabay fudaydinaysaa. waxaan kusoo koobaya gabdhuhuna rag waa u baahan yihiin, ragguna hablo waa u baahan yihiin. in guurka la badiyana waa min addiin, waana waxyaabaha mustaqbalka ummadeed ka qayb qaata. westranka joogtaan waxaa ugu badane laga qaylinayaa waa guur yaraan. waxay guurka u diideen sababo badan. sababo dhaqaale qaar waa u diidaan, qaarkood waxay u diidaan sababo maxay qaanuun. maalan gabadha haddaa kala tagtaan iyaga dhaqankooda maxaa gabadhu leedahay? hantidaada nuskeed bay dee leedahay. tale ninka milyaneerka ama milyaneerkii hadduu gabadh guursado berita ay istilaan hantidiisa nus baa la siinaya. oo maxamed u guurinaya buu leeyahay ma iska haysto, dhansanbu iskala ahaado.
laakiin inagu maadaama aynu muslim nahay dhaqamadaasi ma jiraan. qofka muslimkiina waa inuu aqbalaa inuu mas-uuliyad qaadi karo. inaad sidoodii markaa u fakerta maaha ku xisaabtanto haddee badharkaaga adigu haddaan ugu badharka iibiyo adiguna roodhida soo yimi dee waxaasi guur maaha. ninku waa inuu qaadaa maamulka guriga iyo gabadhuna inay tidhaahdo kharashkana adaa bixinaya taladana waa wada leenay dee iyana meesha ma taalo. haddii uu isagu qaatay kan iyana waa inay aqbashaa maxay gurigu inuu liidar yeesho. mashaakilka yurub waxay yidhahdaan sharikaadka kale ee yurub oo dhan lama ogola shirkad aan hogaamin lahayn. xataa shaqa haddii laba qof laydinku diro midkiin baa mas-uula, labadiinoo siman shaqa looma diro. waxay yidhahdaan any shaqo yurub taalla herarkii bay leedahay. shaqo aan maamul lahaynina ma jirto. shaqo qura bay yidhahdaan baan maamulka lahayn. hadda waa shaqada guriga male cid maamusha. adna waad simantahay inana waa kula simanahay. faman yasuuqu alximaar bay carabta odhan jirtay. ana alamiir wa anta alamiir faman yasuuqu alximaar. waxaanay ahayd meeshii ugu khatarsanayd ee bini aadam la rajaynayay in lagu koriyo oo kala dambeyn lagu barto oo cadaalad lagu barto oo dadnimada lagu barto inay iyana yeelato hierarchy, inay iyana yeelato maamulka si loo kala leeyahay. in la yidhaahdo xaafadda dadka jooga o dhan uu siman yahay macnaheedu waxa weeyaan gurigu ma jirayo. gurigu ma jirayo weeyaan. waa inay jirtaa cid go-aanka kama dambaysta ali. tale waa lagu leeyayo dictator maaha, laakiin go-aanka waa inuu yeeshaa. waxaan uga dan leeyahay markaa ragguna qadiyadan dhaqaala waa inuu ka daadegaa oo u aqbalaa inuu gurigiisa biiliyo maamusho. habluuna waa inay ka daadegaan qadiyadan ah biilkana isii taladana nuskaygaan leeyahay iyana meesha kuma jirto. talada ciddii le baa leh. marka waxaan uga dan leeyo laba dhaqan oo aan iskalayn haddaynu isku wadno socon mayso. waxaynu rabnaa guri haddaad samaynayso guri muslima inuu noqdo oo dhaqan muslim leh oo diin ku dhaqma oo sidii ilaahay uu inoo kala siiyey aynu wax u kala leenahay. warka waxaan kusoo koobayaa waa nooc min adardasha dee muxaadara maaha, laakiin uun waa dhiirigelin sida uu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhallinyarada u dhiirigelinayay guursada oo waliba ta dhalaysa guursada buu nabigu yidhi alwaluudla tii dhasha badan hala guursado. waxaan uga dan leeyahay in loo qastiyo in wax la dhalaa inay min addiin ka mid tahay, laakiin mas-uuliyaadka ka dhalanayana qofku inuu ku talagalaa inuu mas-uuliyaadka qaadi karayo oo wadi karayo. guur la-aan mar walba guur baa ka fiican. saxaabadii rag ka mida laga sheegay 10 casho haddii aan islaantii baa ka dhimato mar baan guur la-aan dhiban gaadhay buu leeyahay. 10 casho anigoo aan reer lahayn inaan joogo ayuu arkay inay wax qaldan ay tahay. dee nin weynoo sanada iska soo fadhiya markaa laga qurux badan. nin weynoo sanada iska soo fadhiya laga qurux badan. marka waxaan ku dhiirigelinayaa haween rag iyo dumarba siba dhalinyarada in la guursado, laakiin guurku uu noqdo guur macno leh oo guri muslim waa unugii koowaad ee bulshada. bulshadu unugani siduu u eg yahay ayuunbay guud ahaan u ekaan doontaa. haddii unugyada bulshadu ay ka bilaabantaa unugyo liito oo burburay ay noqoto, bulsho weyntuna ma noqonayso bulsho dhisan. haddii unugyadaas ay yihiin unugyo ishaysta oo si fiican u jirana waxay tilmaamaysaa bulshadan inay mustaqbal leedahay. marka hadday dhallinyartu ama guursan weydo ama furitaankoodu bato ama guri ay maamuli kari waayaan bulsho ka badanna ma maamuli kartid. yani in badan baa waxay dhalintu yidhahdaa soomaaliya dadka jooga waxba garan maayaan waxba maal adigu hal islaana haddaad maamuli kari weydo soomaaliyaad wax ku taraysaa markaa. hal islaana ama 2 carruur oo ay dhashay intaa haddaad maamul u garan kari weydiiyo wadis cid kalena waxba tari kari maysid. marka waxaan leeyahay war meesha tani waa meesha noloshaba lagu tijaabiyo. gurigu waa meesha nolosha dhammaanteed lagu tijaabiyo. hadday cibaadatay, hadday diintay, hadday maamultay, hadday leadership tahay, hadday mas-uuliyaad tahay, waa meesha lagu barto. laakiin waa inaad noqotaa qof u diyaara inuu mas-uuliyaadka intaa laga qaadi karo.
aanu ahayn qofun ka fakeraya qadiya jinsiya guurku sags maaha qadiya jinsiya inuu inan helo uu markuu shaqada ka soo daalo iskala nasto ma aha waa qof ku talagalay inuu mas'uuliyad qaado inantuna waa inay ku talagashaa dee hooye inay noqon karto oo guri wadi karto صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وين يربط ترى بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه هل كلمة وحان أرنا يا دلنيردا كلمتنا والدينتا كلمتنا غير ستوكهولم كلمة دعانا وكسو ختمينا إن شاء الله دلنيردا وحان ليهي ارتقفك مبدأ إيو عقيدة فاليوغا قيمك وحير إيقار علينا بأيدي الشيخ بقيسي سيارة من الحين أتعلم السلام عليكم دلنيرو سؤالنا علمada waa weydiinaysaan insha Allah taala 10 waa jirta marka qofka aan degdegsanayn laga wada faa'iideysto insha Allah dhalinyarada waxaan oran lahaa siduu sheekhu sheegay guurku mar waajib buu noqdaa marna sunno weeye marna xaaraan buu noqonayaa marna karaahiyo marna wuu bannaan yahay horta waa in sidaa loo fahmo miisaanka shareecadana la saaro weeye guurku marka waa sunnooyinkii ambiyada waa waddada keliya ee ilaahay uu noogu oggolaaday inaynu ku taranno siyaabo badan buu xayawaanku u tarmaa inta nool oo dhan siyaabo kala duwan bay u tarmaan laakiin guurku waa waddada keliya ee ilaahay uu addoomihiisa uga raali noqday inay ku tarmaan sidaa daraaddeed ayuu labada qof ee isguursanaysa axkaam iyo xuquuq buu dhexdooda dhigay axkaamtaa marka haddii laga soo bixi waayo maalan ninka markuu guursado ninka iyo xaaskiisa ninka xuquuq baa waajib ku ah xuquuqna wuu leeyahay waxaa waajib ku ah oo la iska wada yaqaanaa fiqi ahaan marasho iyo masruuf iyo maharkii oo ugu horreeyeyba iyo maskan iyo guri gabadhana waxaa waajib ku noqonaysa inay zawjkeeda ateecdo waxaa xaq ka wada dhexeeya inay si wanaagsan u wada dhaqmaan almucaashara zawjiya waxaan loo yaqaano xagga dhaqanka hadda gabdhihii ma aqaan inay laga yaabo inay hawada nagala socdaan laakiin meesha ma joogaan xagay ku jiraan soo maaha anigu garab badan baan ka qayb galay mu'tamarkii dhallinyarada ee aan Denmark ku qaban jirnay in mu'tamarkaas muddada dheer la qaban jiray culummada Soomaaliyeed ugu waaweyn sida Sheekh Mustafa oo kale uu nagala soo qayb gali jiray meeshuu ka dhashayba waxay ahayd dood ay sameeyeen wiilasha iyo gabdhaha magaalada Odense ee waddanka Denmark dood baynaada la isula baxay waxba la isula kala harin oo toos ahayd garihii markaan dhageysanaynay waxaa qolyahana garle baad odhan meelaha qaar laakiin waxaan rabaa inaan dhalinyaro inaan idhaahdo waxa aad ku fakaraysaan horumar cidna ma diidana isbeddelna cidna ma diidana oo waa loo baahan yahay
laakiin markaad isbeddelka samaynayso waa inaad haddana qaacido adag aad ku fadhidaa wixii lagugu soo koriyey ee aabbaha iyo hooyada ay ku soo dhaqmeen waa inay kula weynaadaan inan baan aqaana aniga dhakhtarad ahoo Danish ah sariirta ay hadda ku jiifto ayaydeed sariirta isticmaali jirtay weeye shandada ay ku timaado dhakhtarka waa shandad hooyadeed loo soo hadiyeeyey weeye waxay marka afkeena waa isu dhowyaan u malaynaya Swedishka iyo Danishka waxay dhihi jirtay waa vadiful waxani waa wax walba aniga igala qiimo badan wax walba aniga igala qiimo badan bay oran jirtay enagana dhaqankeennii iyo wixii hore la isugu soo guursan jiray inta laga tegay oo dee lamaba yaqaanaa laga yaabaa ayaa waxaa loo hanqaltaagayaa dadka Swedishka si u nool yihiin iyo Danishka si u nool yihiin dee baqal farda la joogto waxaa weeye iyadu ma noqonayso marka wixii lagugu soo koriyey inay kula weynaadaan oo qiimo kula yeeshaan waa lagama maarmaan tusaale anigan hadda idinla hadlaya markaan guursanayey 15 jir baan ahaa inkastoo u malaynaya 15 jir weyn inaan ahaa waa inaan weynaa waxaan ku garanayaa go'shaalahan qaadan jiray bakoorad baan sidan jiray macawis sarandaan xidhan jiray kaba kooyaan xidhnaa koofi dheer oo tan ka dheer baan qabay marka inaan nin weyn ahaa kitaabka minhaajkana waa naloo akhrinayay markaan guursanayey marka inaan nin weyn ahaan baan u malaynayaa laakiin da'daydu markaa waxaan ahaa 15 jir inaan guursado wixii igu kallifay baan idiin sheegi horta diin bay iga ahayd oo markaan qaan gaaray waxaan arkay anigoo xoogay gabdhihii eegaya waxaa laakiin runtii isii tikhaantikhisay oo motivation ii noqotay aabbahay baa isagoo habeenada ka mida ii sheekaynaya sheeke weliba macaan oo si furan aan u sheekaysanayna ayaa wuxuu igu yidhi anigu waxaan ku guursaday 16 sano habeenkii unba anoo waxba u sheegin baan ana hoosta ka go'aansaday inaan hortii guursadaa koobka inaan gool ka qaado koobka inaan jabiyaa ilaa adduunka tanaafus baa ka dhaca tartan baa ka socda boogta adduunka rag iskuraya way adduunka waqad facaltu waan xusuustaa isaga wuu ogaa safar buu aaday gobolkan Xudur annaga markaa Hiiraan baan joognay Xudur buu aaday wuxuu yiri wiil anigu aan dhalay baa jiro oo naxwaha iyo sarfiga aad u yaqaana gabadh baan rabaa in la igu raadiyo malaha gabadhii ka dhaqaaqday meesha ayaa loo soo taago la yiri tanaanba ku haynaa annaga nin kutubta noo akhriyo waa u baahannahay noo keen wadaadkii oo gabadhii soo gudoomay gudoonna oo mabda'i ah macnaa guur maaha ama siisma maaha laakiin wadaadkii oo gabadh ii soo arkay baa ii yimid wuxuu igu yidhi gabadh baan aabba kuu doonay ee diyaar garow lagama yaabanaan ku yidhi moorta ma waajib baa wuxuu yidhi ma waajib maaha waa talo waxaan ku yidhi ha ka yaabin maxaa dhaca waxaan ku yidhi anigu gabadh inan yar ood walaayadeeda haysa miihi marka hadday xorriyad iyo aniga aan ikhtiyaar leeyahay gabadha aan guursanaya anaa keensanaya isna waa iga yeelay aabbahay raximahullah allah u naxariistee marka in aad sooyaal nololeed aad leedahay meel aad ku dayanayso oo qaacido aad leedahay laakiin haddii aad tidhaahdo dhaqankan iyo halkan waxa ka jiraan wax ku qiimaynaya waxba badan kuuma taariikh ahaanna ya sheekheennii baa nala joogay taariikh ahaanna lama sheegin cid intay cid ku dayatay guul ka gaadhay nabigana wuu nooga digayba oo waxaad ku dayanaysaan kuwa idinka horreeya taako taako dhudhun xataa haddii ay galaan maansallugoley godkeed hadday galaan waad la gelaysaan ma alyahuudu wannasaara baad u jeedaa ilaah rasuulkiisii oo yaa kale buu yidhi marka qofku waxaa la rabaa inuu mabda' leeyahay dhaqan leeyahay markuu guursanayana waxaan inay mabda' iyo diin ay ka tahay taas waa midda dhallinyarada odayaasha ama waalidiinta waxaan dhihi lahaa anigu dacwad in muddo dheer baan ku jiray xogagaal badanna waana cabashada weliba hablaha way soo gaadhaa
waalidku qayb weyn bay ka yihiin guurku inuu guur mashaakil malii bilmashaakil inuu noqdo hoolka la soo kiraynayo waa lacag fara badan gabadha waa in dahab maalinka waa in yani digdig lacag ku dhadhow aada u fara badan baa marka qofkii waa inuu hayaa si uu u guursado oo habeenkaa meesha looga tegayo haddii ay wax meel ku jiro oo la intifaacsanaya aan lahayd maxaa kaa dhici lahaa meesha lagu digdiglaynayo damdamta iyo durbaanka ka socdo oo laga yaabo in reere lagu caayayo kuwana ammaanayn lahayn lagu ammaanaya wax laga yaabo inuu qarash oo dhan uu ku baxo taklifada noocaas oo kale ah waa israaf guurkay dhaawacaysaa meherkan la isugu faanayo aqalahunna maharan ama muhuuran buu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam yaa ugu barako badan gabadhba gabadhay ka meher yar tahay bay ka barako badanta iyadoo aan sharcigu diidin inta ay meher ka dhiganayso waalidiintu markaad la sheekaysato nin walba wuxuu ku leeyahay insha allah waa yeelnada laakiin midayda lagu bilaabi maayo midayda lagu bilaabi maayo dib baynu ka sheegi doonaa dib baynu ka hagaajin doonaa dee baashuna waa isla wareegto weeye marka inay cid un joojiso weeye cid un inay joojiso raalli ahaad haddaan noloshayda baraybatka aadan kaga sheekeeyay hooyaday baa waxay igu tiri maalin dhaweyto hooyo u malayn maayay tiri marka aan dhimanayo inaad ila joogayso waan isku nacay waxaan ku uri maxaa wacay hooyo sabad maxay tahay waxay tiri anigaba hooyaday iyo aabbahay markay dhimanayeen lama joogin oo hooyaday baan ka fasax qaatay labadaba hooyaday baan la joogay aabbahay isku meelba maana joogin laakiin hooyaday iyadoo ay fasaxdo igu tiri soo noqo oo iyadoo meel ii dirtay bay nafti ka baxday bay tiri allahu naxariiste waan ku yarahanahay marka iyadu laakiin waxay leedahay amba hooyaday iyo aabbahay lama joogin marka adna inaad ila joogayso u malayn maayo ordoo danahaada qabso mar dambe marka iisoo dirtay tix yaroo gabaya marka oo ay ku leedahay laakiin dee weligeed wareegi maysay cidun waa inay soo afjartaa baashu hadduu nin walba yidhaahdo amba waalidkay baa saa ku sameeyey dee weligeed waa dhaxal bay noqonaysaa waa inay cidun soo afjartaa bal hadda iga soo agdhawaada waalidiintu marka waxay wanaag u arkaan diintuna ay sheegtay waa inay cidun bilowdaa waa inay cid u istaagtaa waalidiintana midaasaan leeyahay guurkan qaaliga ah gabdhihii khaatir billay ka taagan yihiin wallaahi dahabka aad sheegaysaan iyo bulukaatiga la xidho waa isugu mid gabdhaha meesha ku dhasho qiimo uu la leeyahayba male marka meel xilli waxaa la joogaa fitno xilli waxaa la joogaa nin walba bahalkaas la salsalaaxayo ibtilo badan ay jirto guurka ha la fududeeyo oo waalidiinta midna waxaan odhanayaa reer Stockholm takhasusku waa fiican yahay annagoo ka duulayna hadda taladii sheekha ana jeclahay sheekha lafsadiisa inaan u sheego Stockholm waan xusuustaa sheekh Ibrahim hadda waa fadhiya horteedu fadhiya halkan waxaan ku qabanay muddo aan u maleynaya 4 sano ka hor inay ahayd aniga iyo sheekh Maxamed Xirsi iyo sheekh Abu Talha iyo sheekh Ibrahim koorso yar oo shiista inay ahayd baan u maleynaya ku qabanay qaabka la isu shukaansado 4 mixwar bay ka koobnayd qaabka shukaansiga qaabka doonista oo daayartu aysan waxba ka garanaynin maxaa aabbahay loogu tagayaa buu leeyahay waa private annaga is dooranay aabbahay maxaa loogu tagayaa ma soo faragelin karaan qaabka doonashada waan xusuustaa iyo qaabka xafladda loo agaasimayo iyo haddii uu khilaaf yimaado ama isku dhac qaabka loo maaraynayo waad aragteen hadda waddanka Norway Oslo ay caan ku tahay wixii Yurub markii wax la heshiisiinay iyada noo qaabilsan Soomaa iyo Nobel Prize iyo marka dadka qurbaha jooga galbeedka jooga idinku hormuud noo noqda maadaama horay aad u qabateen masjidkiina caawa ha tawaliyo budget ha u sameeyo insha Allah wixii inta khubaro la aruuriyo waliba iyo macluumaad la aruuriyo oo foolare iyo qoraallo la sameeyo oo workshop iyo training la sameeyo ayaynu teeriyo insha Allah kala Mareykanka gaarsiinayna laakiin waa inay cid u istaagtaa wareer Stockholm oo diyaar muutiin arintaas insha Allah diyaar baa u noqonaysaa biidin Ilaahi tabaaraka wa taala arrinkaasi waa iyadana waa talo Ilaahay waxaan ka baryayaa jalla jalaaluhu
بأسماء الحسنى وصفاته العلى إنه دليرة جور حلال وسهله إلهي سبحانه وتعالى جور كوا دور صنان يعفاء جور يكون دور صدان ويكون دجان وإلهي سبحانه وتعالى جور إلهي لقى عبده وأحكامته إلهي سبحانه وتعالى الله إلهي حدود ديسة إلهينا اللي يسجد دواده وإلهي اللي يصلح وصول اللي يصلح تصبيح صدو إلهي سبحانه وتعالى أن يرد الله سهله دلال كيدي وضد دين الله نسر نسيه وجزاكم الله خيرا وشكر الله سعيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله. طبعا سؤال الدين إن شاء الله مرحبا. وضيافكم الشراء وعدة وحويدين السوار فعند اللي يراد إن شاء الله. انت